wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in dalka laga joojiyay imaatinka jaadka laga keeno dalka Yaman kaasi oo maalmihii u dambeeyay laga soo daabulayay dalka aynu xuduudka biyaha wadaagno ee Yaman. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Mudane Saleebaan Jaamac Diiriye oo uu weheliyo agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaraddaasi ayaa hadal si wada jir ah u siiyeen warbaahinta waxa ay ku sheegeen in dalka Yaman uu ka jiro xanuunka halista ah ee daacuunka kaasi oo kumanaan ruux ku dilay bilihii u dambeeyay dalkaasi sida daraadeedna ay go'aan ku gaadheen in dalka laga joojiyo soo galitaanka jaadkaasi khataraha caafimaad ku wareegsan yihiin. ugu horeyn agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyay. wasaaradda caafimaadku waxa ay halkan ka shaacinaysaa in ay jiraan xanuuno faafa xanuunada waxa kamid ah xanuunka loo yaqaan cholera muddadan u dambeysay waxa soo soconayay qaad ka yimaada dalka Yaman kaasoo uu ka jiro xanuunka loo yaqaan daacuunka ama cholera dabadeed waxa weeyaan xanuunkaas waa xanuun halis ah soona faafi kara kuna soo faafi kara. haddaba waxa ay wasaaradda caafimaadku markay dhinacyo badan ka eegtay ay tixraacday xaaladda ka jirta waddanka ay eegtay xaaladda aynu galayno ee doorasho aynu ku jirna eegtay isku socodka dadka iyo populationku sidoo u soconaya la wada eego waxa weeyaan xaaladdaasi waxaan u aragnay wasaaradda caafimaad ahaan inay tahay xaalad khatar ah. dabadeedna waxa weeyaan arrintaasi waxaanu soo garanay dhamaystirnay in la joojiyo qaadka ka imanaya Yaman. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Mudane Saleebaan Jaamac Diiriye ayaa isaguna fariin u diray bulshada cunto iyo kuwa ka ganacsada qaadka laga keeno dalka Yaman kaasi oo ay hareeyeen khatar caafimaad oo ugu horeeyo xanuunka daacuunka oo dalkaasi ka jiray muddooyinkii u dambeeyay. waxa jira sahaminta aanu sahaminay waxaan u sheeko hayno ugu badan imika dhulkan xuduudka leenahay ee waddanka Yaman aynu jaarkanahay badda yar inoo dhaxayso inuu yahay xanuun kalooraha uu ka jiro oo noocan waliba adduunka hore looga aray uu ka jiro oo dhimashadu ku badan tahay. marka qaadka Yaman laga keenayo la yiraahdo ama magacu doonaba ha lahaadee Yaman laga keenayo waxa weeye wasaaraddu way ka digaysaa inaan la keenin oo bulshada caafimaadkeedu halis badan u leeyahay annagoo aan qaadadka waddanka yimaada iyo khudaarta timaada midna si gooniya una xayeysiin midna celinaynin laakiin waxa jirta halis caafimaad. halista caafimaadna waxa weeye annaga ummadda ugu bulshada ugu mas'uula qof baa laga yaabaa inuu ka faa'iido laakiin inta aynu ku seegano ayaa ka badan ka keenaya iyo ka cunaya iyo ka soo dhoofinaya iyo ka cashuuraya. inta waxaan leenahay anigoo wasaaradda maaliyadda warqad u gudbin doona inaan goobaha kastamada lagu cashuuri karin qaadkaas uu yahay halistiisa leeyahay in laga digtoonaado maciishooyinka qoyan ee ka imanaya waddanka Yaman. waa fariin caafimaad muwaadin haddaad tahay kii cunayay haddaad tahay kii soo qaadayay haddaad tahay kii keenayay waa fariin caafimaad ku soo diray dani kugu jirto carruurtaada dani ugu jirto qoyskaaga dani ugu jirto qarankana dani ugu jirto aad baa mahadsantahay. dalka Yaman ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa hareeyay dagaallo iyo qasas siyaasadeed kuwaasi oo jahawareer ku riday bulshada ku nool dalkaasi Yaman waxaana farabaas ku hayay xanuunka khatarta badan ee daacuunka kaasi oo ka dilay kumanaan ruux.